عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين هذا في سيارة 16980 وهذا 15381 هذا بس بقى هذا سجادة اللي كان يسوي بكرة هذا ولد سيدي أحمد طاهر وهذا المغرب تونس كلمة أنا كنت بيسألوك فايدين سنة فرصة المدن مدحويني. لما يعني تروي مد وحوي مد كل شيء ذلك الصومالية ذا يكون نور اليمن ودنا كان ودنا ونعكسوي ودنا عربية وي ودنا إسلام وي ودنا درس وي ودنا حرير سوتشنا علينا هوي مرك إلا دور الشدود ديس وي يعني سنتي مركز كلاش كيسوتو هذا كيسا ودنا كان ودنا ونعكسوي هاي لوسو دوي الله من ودنا ماذا كله أو عربته أو إسلام كا marka taas iyada in lagu baraarugsanaado oo wax lagu barto lagu noolaado laga shaqeysto laakiin shuruucda iyo nidaamka dalka la dhawro oo wixii ceeb u keenaya Soomaali Puntland oo keenaya inaan iska dhawrno oo aan ku dadaalno ayaa loo baahan yahay dhanka kalena waxa weeye dadaanan aan la oo sheegay dadka Puntland oo ah in wadankan uu yahay wadan wanaagsan oo xiriir fiican la yeelan karno ganacsatada ay ka shaqeysan karaan wax ka qabsan karaan xiriir ganacsi oo fiican oo dhow la yeelan karaan marka inaan soo dhaweyno Soomaaliya dadkaas Yemeniyiinta oo Soomaaliya ku nool si wanaagsan oo xurmo leh oo sharaf leh oo islaamnimo ah aan kula dhaqan soo dhaweyno Meelba ay joogaanba sababtoo waxaan ka dareemay madaxdooda markaan arkay in jacayl gaar ah oo qaba Soomaali guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland marka ana sidoo kale inaanu mid la mid ah u muujino ayaa laga maarmaan waajib ah isla maalinimadii talaadada madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu soo idlaatay booqashadiisii rasmiga ah ee uu markaasi ku yimid dalkan Yemen madaxweynaha ayaa maalinimadii talaadada gaar ahaan 10kii iyo barkii habeenimo ayuu waxa uu u dhaqaaqay dhanka iyo madaarka magaalada Sanca halkaasi oo markaasi ku sugaysay diyaaradii uu raaci lahaa
العذاب